15 May oo astaan u ah geesinimada halganka iyo himilada dhalinyarada ururkii SYL ee aasaasay riyadii Soomaaliyeed ee xurriyadda iyo midnimada iyo dawladnimada maanta aan harsanayno waxay mudan yihiin xusuus kaliya ma aha waxay mudan yihiin ku dayasho dhalinyaray maanta idinka matalaya SYL shalay waxa la yiri wuxuu maan ku haray intii madax madow kuma jira aniga kuwaas idinka ku jirtiin aqliyada idinka idinku hartay laakiin sidoo kale waxa waqti fursad weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan caasimadda fursad lagu dhisayo mustaqbal cusub oo horumar iyo cadaalad lagu dhisayo maanta dalku wuxuu wajahayaa qaarkiin in ay u tahriibayaan duni kale oo ay xitaa ku baaba'een oo ay garanayn markay tagaan waxay la kulmayaan barwaaqo looga been sheega darteed laakiin meeshaad u socoto dad baa dhistay tanaan dhisan karnaa oo aan wax weyn ka bedelan karnaa taageerada dhalinyarada iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddaan eegno maamulka gobolka Banaadir wuxuu si cad u qirayaa doorka muhiimka ah ee dhalinyaradu ku leedahay horumarka magaalada iyo guud ahaan waxa aan ka qaban karno caasimadda